نعيم جوكري نسب دلاله وحداي نظيف كفتيل النسخان نعيم جوكري نصب دلديه waxaa tahay nadiif ka fadilan nusqaan waa barnaamijkeeni falaqaynta dhaantooyinka isku soo noqosho wanaagsan iyo kulan dambe oo xiiso leh aad baa idiin salaam meel ka soo joogtaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan hadduu aragtaa barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa ama ku dul istaagi doonaa dhaanta aad u macaan dhaantaasi oo loogu talagalay Naciima Joker waxaa ku luuqeynaya dhaantada maqaadaya fanaanka abwaanka mulaxanka dhaqanyahanka weyn ee Soomaalida Axmed Budul Ismaaciil waxa la yiri dumarka in la amaano aad bay u jecel yihiin waxayse ka sii jecel yihiin baa la yiri oo mudnaanta ay sii siiyaan in laga amaano dhanka reer xididkeed sida dumaashigeed inuu amaano sodogeed inuu amaano sodohdeed inay amaanto dumaashideed oo gabadha inay amaanto ninkeedu inuu amaanoba waxaan ula jeedaa Axmed Budul Ismaaciil maadaama meesha laga qaadayo ay tahay showga soo dhaweynta Ilka Casaqays fanaanka shanta Soomaalida raabka u qaaday waxaa lagu maamuusay oo lagu tusayaa ciziga iyo sharafta ay ka joogto reer Soomaali galbeed Naciima Joker Soomaalidu waa ilma adeer kulli way wada dhalatay waa ilma eedii ilma abti laakiin tusaale xaaska aniga aan qabo ee marwadayii ah ninka aniga saaxiibkay ah ilaahu dad isku xigaanay ee horteed baan saaxiiba lillaahi ahayn dumaashi buu u noqonayaa waxaan ula jeedaa markaas ha u qaadina hadalkan ama inaan ula jeedo Naciima Joker waa qof kale oo dee sidaasi ha u qaadina Naciima Joker waa gabar Soomaaliyeed isla markaana walaashii Axmed Budul Ismaaciil abwaanka weyn ee markaas dhaantada u maamuusay marka hadiyad qaali ah ayaan soo oran karnaa tan oo kale oo ku soo celinaa dhaantada muuqaalkana noo sheer garee like sidoo kale oo soo noqonay nolol shaqee mahadsanid نقشد يبلو قرحان او ندهم سنئي وحتى هاي نفان معلم إذا لا أراد naqshad yaab loo qurxoon oo nadaamsan iyo waxaa tahay nafaan nooc la mid ah la arag inaba caadi ma ah naqshad yaab leh oo qurxoon naqshad yaab loo qurxoon oo nadaamsan iyo naqshad aan horba loo arag nooca iyo actionka iyo siday u eg tahay ilaahay u suureeyay iyo qaabkay u eg tahay marka naqshad yaab loo qurxoon oo nadaamsan iyo waxaa tahay nafaan nooc la mid ah adduunkaba iman oo arag inaba caadi ma ah يدي يا قلبي نالافتهم يا السبقارني ملون نسبه من رجال قيس أدوك وقول إلي النصير niyadda iyo qalbigana liftiimiyay nasab boqornimo loo nisbeeyay min rageed qays aduu kugu helay nasiib niyadda iyo qalbiga nuur iftiimiyay nasab boqornimo loo nisbeeyay gobonnimo sharaf karaamo qurux min rageed qays aduu kugu helay nasiib no comment oryaare inaba caadi ma wallah ee u socotaa نعيم جوكر مرتن وحور لهي نحوي أمان هذا كوسان قيلي Naciima Joker murtin xor lahiyo naxwa iyo amaan adan ku soo naqilay ku soo guuriyay murti amaan iyo de wax kastood mudnayd adiga ayaan ku soo naqilay eriga naqilid waa carabi oo ku soo guuriyay weeyaan oo ku soo raray aad iyo aad لكنها عيا نور كدها يا هاي نوحيقا بدان ونوي بدان بعد نعيما يكتميد cajaa'ib nar hilaacay
naq hilaacay yani naq waxaa la yidhahdaa roobka markuu hilaacayo ee da-ayo waxaa la yidhahdaa meesha naq baa helay naq baa ka da-ay naq baa inoo da-ay naq baa inuu helay naq baa bilaawmay waa roobka ma fahante roobka weliba haddee daruurta ama hogasha yar ee meel qalac ku dhaha lama rabo taasoo kale lama rabo naq waxaa la yidhahdaa roobka caadiga inuu bilaawmo oo roob weyn ama deer ama guuxu ahaadaba ay bilaabato oo uu do-o naq culus ama roob culus oo mahigaan ah uu do-o ayaa naq la yidhahdaa marka naq hilaacay iyo nuurkii dhaayahay nawaaxiga puntland baad naciim ay ka timid inaba caadi ma ah niyadiyo qalbiga nal iftiimiyay nasaba qaaradnima loo nisbeeyey nin rageed qays adoo kugu helay nasiib niyadiyo qalbiga nal iftiimiyay nasaba qaaradnima loo nisbeeyey nin rageed qays adoo kugu helay nasiib niyadiya qalbiga nuur iftiimiyaay nasab boqoradnimo loo nisbeeyey yani loo hibeeyey oo ilaahay siiyey nin rageed qays adu kugu helay nasiib dhaantadani waa dhaantayna baan caadi ahayn oo loo hibeeyey loo hadiyey loogu talagalay nicimo joker walaalkeed ama walaalkeen abwaankaah dhanka markii la yidhahdo suugaanta aadka u weyn dhanka da-dana aan ahayn sida loo malaynaya meelaha u ka hadlo aad iyo aad yani markii la dhahdo fanaanka weyn markii la yidhahdo nin weyn ah iska sawiran qarfaalo iska sawiran waaba markaa yaraa wax maqli jiray madaxweynaha dalka waxaan u malayn jiray nin dhakadu halkaa la eg tahay oo madaxu rubis yahay oo gaamuray oo madaxa wadila oo saale madaxa saa dhahayaan u malayn jiray mogta waxaasiisa ku sawirmin aad iyo aad dee hadda waayo canug yaroo yani muxuu ahaaye baadiye joogo oon weligii miya arag oo dhashay ama yar oo aad u dayar adugu sida 5 jir 6 jir 4 jir ugu hooseen kasoo kale madaxweynaha dalka hadduu maqla muxuu malanaya wuxuu iska sawiranayaa haddiiba uu isku shuqliyaba waxa uu maqlayo uu isku shuqliyo marka isku shuqlin jirayo allah show ninkaasu madaxweyne baan dhihi jiray talow suu egi ninkaas isaga ah show madaxweyne hadda ninkani markaan ku dhaho fanaanka weyn ama abwaanka weyn nin dhaka weyn ha sawiranayna waxaa sawirataa nin daayaroo dhanka murtida iyo xigmadda ka weyn aad iyo aad muuqaalka inoo sheergare oo soo laabanay isla shaqayn iyo wadajir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu